degmada Daroor ee gobolka Jaraya waxa sanad miisaaniyeedka 2017 u qorshaysnaa in laga hirgeliyo 12 baraagood oo ah kuwa biyaha roobka loo kaydiyo kuwaas oo waqti xadirka la soo gabagabeeyay isla markaana xadhiga laga jaray waxaana munaasabadii xadhiga laga jaray ka soo qayb galay maamulka degmada oo horkaciyo gudoomiyaha degmada Daroor oo ay ku wehelinayaan madaxa xafiiska biyaha iyo bulshada ku dhaqan tuulooyinka iyo santarada laga hirgeliyay baraagahani gudoomiyaha degmada Daroor Mudane Cabdilaahi Sheekh Faarax oo xadhiga ka jaray baraagahani ayaa sheegay in baraagahan ay door muhiim ah ka qaadanayaan qorshayaasha kor loogu qaadayo adeegga biyaha nadiifta ah ee bulshada looga faa'iideeyo iyadoo lagu kaydinayo biyaha roobka oo bulshada u sahlaya in goobaha ay ku dhaqayeen ay ku helaan adeegga biyaha ay u baahan yihiin. Tani waa mid ka mid ah 12 barkadood ee degmada Daroor sanadan u qorshaysay 2007 waana barkadii u dambeysay ee xadhiga jirkeeda sameynay waxa weeyaan waxayna ku taalaa goobta centerka Kamidle oo ka tirsan degmada Daroor waxaad ogtihiin xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya in ay biyaha siisay priority gaar ama ahmiyad gaar ah la siiyay sababtoo ah 1 2 3 4 iyo 5 waxa la yiri biyo taas awgeed sidii barkadan la idinku qoday inaad idinkuna jawaab fiican uga bixisaan oo aad noqoto mid adeeg loogu talagalay bixisa waxaad ogtihiin barkadani waxay ka kooban tahay 600 oo mitir cube marka waxa weey barkadaas inay noqoto barkad aad ilaashataan muhiimadeedana aad idinku yeelataan oo laga maarmaan madaxa xafiiska biyaha ee degmada Daroor Mudane Cabdilaahi Mukhtaar ayaa isaguna bulshada kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan isla markaana ay ilaashadaan baraagahani hadda la dhameystiray ee ay iyagu ka faa'iideysanayaan. Barkadani waxay ka mid tahay 12 baraagood oo sanadka 2007 aan ka fulinaynay degmada Daroor. Barkadan maanta xadhiga aan ka jarayno oo ay ku baxday ilaa 550 lacag gaaraysa ayaa waxaan maanta xadhiga ka jaray iyadoo ugu dambeysay run ahaantii mashaariicdii sanadkan biyo ururinta 2007 loogu talagalay degmada Daroor waqti xaadirkana dhamaadeen halkii tii ugu dambeysay maanta xadhiga aan ka jaray xukuumaddu qorshihii ay qaadatay way dhameystirtay way ka soo baxday ilaa barkad maxaan ku dhahayay ay ku baxday half milyan ayaa maanta halkan ku dhameystiray xadhiga jaray haddaba shacabka degmada ee santarka Kamidle waxaan kula dardaarminaa inay barkadaas si loogu talagalay oo faa'iideysan shacabka ku dhaqan tuulooyinka laga hirgeliyay baraagahani ayaa cadeeyay in ay aad ugu faraxsan yihiin isla markaana ay ilaashan doonaan iyagoo ka faa'iideysanaya adeegga biyaha waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay mashaariicdan ay noo sameysay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya annagoo waagi hore ugu doonan jiray meel aad fog biyaha ugu doonan jirnay imakana ay xaafadaha ay dabadoodii biyihiina looga dhigay haddii ay maxay ay caafimaad u baahdo haddii iskuul u baahdo haddii bulshadu u baahantay aad waxaan ugu faraxsanahay ugu soo dhaweynaa barkadahan naloo qoday waxaanu ballan qaadaynaa inaanu dayactiri doono dayactirkeeda iyo sida loo noogu galay in sida la noogu soo dhigay inaanu uga faa'iideysan doono tan waa ballan qaadaynaa aniga ku hadlaya codka shacabka barnaamijka biyo ururinta ayaa ah mid sanadihii u dambeysay bulshada deegaanku ay ka faa'iideysteen oo kaasi oo ah mid lagu xaqiijinayo horumarinta adeegga biyaha nadiifta ee deegaanka.